الله والله 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 الله. halkan hadda waxaan tagay doonaa gurigii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ku dhashay sida la yiraahdo waa maktabad hadda waa arki doonaa مغلق يا مغلق لا يفتح في هذه الأوقات مواسم الحج لا يفتح. أي بسم الله ayaa sameeyay oo dambo xilli dambaha ka hor wuxuu ahaa gurigii uu rasuulku ku dhashay sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka kadib si aasaartiisu ay u jirto oo loo baabi'inin ayuu ninkaas oo nin muxsin ahaa ayaa sameeyay min maalihi khaas xoolihiisa khaaska ah ku dhisay halkan waxay shicbu bani hashim meesha la yiraahdo Abdul Muttalib waa meeshii waagii lagu go'doomiyay سيرة صلى الله عليه وآله وسلم مركي لقودومي ماشي جوجين بهالكن هيد بالليل هذا مركا رسولكم مركو كل شيء كدي من وحال مسمية هذا السنة سلوا مسمية اللي هذا حجكة اللي هذا ضدك بدي مادان موجي مركا كلامه فراه لكن اللي حجكة لما فراه مركا مكتبنا أنا لقى سمية الله أعلم ما في داخلها لكن كليا أنا قاعد عثرت المكان ما كنت شيء إنه meel cibaado ahaan ma aha waxaan rabaa dadweynuhu inay ogaadaan cibaado ahaan umaanaa imaanin laakiin jas maadaama waxaan rabnaa inay barasho ahaan ay dadku ogaadaan cilmi ahaan inay u ogaadaan taariikh ahaan inay u ogaadaan laakiin meel diin ahoo u soo safaray ma aha halkaa dadka qaar inay u qaataan inaan soo booqanayno meel diimeed inay leen rasuulku wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam cibaado ahaan saddex meelun baa loo safraa masaajidka rasuulka iyo masaajidka xaramkoon hadda joogno waa ka masaajidka xaramka هذا جدًا واقع حرمكي وحرم في واقع مركب مساجد حرمك يوم مدينة يوم بيت المقدس صدق رام بعبادة اللو هذا وحتى كسر علي قبرنا لما هذا ملك لنا عبادة اللو هذا لكن وحنو هذا أثر إيراد يوم علمي هاني تدخل برتان إن شاء الله تعالى لكن أنت هذا كربنا وصعنا ملك لنا تجدونا محبس الجنب اللي هذا ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم meel habeen oo asxaabta soo sidaan oo kale la jooga ayay habeen waayeen rasuulka sallallahu alayhi wa sallam way ka walwaleen aad bay u walwaleen marka subaxii uu iska yimid rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxa ya rasuulullah xalay xagee jirtay wuxuu xalay walaalihiin oo jin abaa'ir ka haystay iyagaan la jiray iyagaan quraan soo aqrinay kadibna subaxii soo baxay wuxuu waa idin geynaya meeshii xalay ay joogeen buu geeyay dabkii ay ku shiteen buu tusay cuntooyinkii ay cuneen meeshii deganayeen raadkoodii wixii rasuulku tusay sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu yiri waxay weydiisteen cunto waxaan ku yiri hilib kasta ama laf kasta oo magaca Ilaahay lagu xuso waxaad helaysaan markii ay ugu fiicneed iyo ugu hilib badneed iyadoo xoolihiinuna waxay cunayaan iyaguna u noqonaya iyagana calaf u noqonaya waxyaabaha lowska iyo xoolaha kale maartay bini aadamka taas ayaga wixii lagu xuso magaca Ilaahay oo laf ah waxay helayaan iyadoo cunto ay helayaan insha Allah marka halkaasna waa tagayna rasuulka sallallahu alayhi wasallam marayna ayay inda keena markii inda daahin barakallahu fiik